wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland iyo wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland ayaa ka qayb galay magaalada Burco munaasabad lagu mataaneenayay golayaasha deegaanka Tower Hamlet iyo degmada Burco xalfadan oo ka qabsoontay barxad ballaadhan oo ku taala Hotel City Palace ee magaalada Burco ayaa waxa goobjoog ahaa maamulka gobolka ka degmada wafdi uu hogaaminayso xildhibaan Aamin Axmed Cali oo ka socotay Tower Hamlet qurbajoog iyo qolqoljoog duqa degmada Burco iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo si mugle uga dareen celiyay xildhibaanada Aamin iyo doorka ay ku lahayd mataaneynta iyo ictiraafsiinta golaha deegaanka ee Tower Hamlet. Aamina iyo hablaha la midka ah waxay soo hooyeen guulo wax ku ool u ah qaranka Soomaaliland sida awgeed waxay naga mudan yihiin inaynu u mahadnaqno. Alxamdulillah aad iyo aad baan u farxay oo soo dhaweeyay markaan arkay in London oo ah obocdii Ingiriiska ama UK oo calankeenii saddexda midab ah laga taagay. xildhibaan Aamin Axmed Cali ayaa iyaduna uga xog warantay mas'uuliyiinta iyo bulshada kala duwan wadadii dheereed ay u martay howlaha iyadoo ugu baaqday bulshada Soomaaliland inay isku duubnaadaan. dadkeygii xaq joogay ee gidigood si wabaasantii si fiican soo dhaweeyay makaanu maxay haydeen inagu isku xidhnaano reer Soomaaliland aanu qabiilka iyo waxaan iska dayno ixtiraafkiiba u soo dhawaanina. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani ayaa uga mahadnaqay wafdiga uu hogaaminayso xildhibaanadu sidii ay halganka u gashay in degmada Tower Hamlet ay aqoonsato Soomaaliland. mataaneyntu waxay la imanaysaa magaalada Burco iyo Togdheer waxay u keenaysaa waxyaabo fara badan maadaama dadaalka ictiraafka keenteen mataaneentuna ay keeni doonto waxbarashaa ka mid ah caafimaad baa ka mid ah nabadgelyada iyo booliiska ka mid ah ambulances baa ka mid ah waxa ka mid ah khubaraa haday tahay Tower Hamlet say u soo dirayso Burco iyo meelo kale oo aad iska dhex gashaan ayaa ka mid ah 25 sanadood ee rubuc qarniga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka kaga hooseeyaan sidii ay xornimadooda u gaari lahaayeen badnaay maanta u sugayaan sida ay xor u noqon lahaayeen waxa weeye waxa bilaabmaya ruux qarni dambe ayaa May bilaabmaya oo halgankeedu uu yahay in maxaa ku raahday Soomaaliland xor laga dhigo waxyaabo badan baynu achieve kareynay waxyaabo badan baynu gaarnay dadaalka ay la gaaray hadana waxa jira markaad gurbajoog tihiin website-ka aad furtaan iyo TV-ga aad furtaan iyo warka aad maqashaan waxa weeye oo waxaan Jamhuuriyadda Soomaaliland geeyay waxaad arkaysaa kuwii mudnaa hadduu Suudaan yahay iyo hadduu caaqil yahay iyo hadduu oday sheeganayo oo qabyaalad iyo qurun ku hajabay hadiyaabe ama farta uu ruuxaya mucadagu ruuxu muxuu ku dalka u dhimanayo uu ruuxaya intuu maxaa ku raadayay maxaa cadagu ugu ruuxay uu ruuxu ku cadawga markaa qurbaa joogto waxaad moodaysaa in dalkan iyo dadkan la isku baabaayo miyaad Soomaaliland arag wax sida quruxda ka muuqata iyo sharafta ka muuqata fallan waxaanu idinka qaadaynaa kuwa noocaas inaanu aanu ka soo dayn hawadiina indhihiin iyo dhagihiin waana maqlin ayaanu ballan ka qaadaynaa. wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Kayse ayaa tilmaamay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ku hawlan tahay dhiirigelinta iyo dardargelinta in Soomaaliland ay hesho ictiraafka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco xubno ka mid ah qurbajoogta iyo haweenka gobolka Togdheer ayaa si isku mid ah u hambaliyay xildhibaanada Aamina oo ay ku tilmaameen shakhsi gelisay dadaal iyo juhdi mataaneynta iyo sidii ay qadiyadda Soomaaliland uga dhaadhicin lahayd dalka UK. hal-abuurada ayaa iyaguna madashani ku soo bandhigay masraxiyad gobayo iyo hiddo iyo dhaqan ay aad ula dhaceen dadkii ka soo qayb galay gabagabadiina duqa degmada Burco iyo xildhibaanada Aamin Cali ayaa kala gudoomiyay astaamaha iyo calaamada magaalooyinka Burco iyo Tower Hamlet. Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Hadwanaag News magaalada Burco.